Assalaamu calaykum daawada kusoo dhawow kanaalka Xiskaal. Waxaanu soo gaarnay cashirkeennii tobanaad ee QuickBook. Waxaan noo furnay company-geena jaamaca company QuickBook isticmaalayna ama versionkiisu waa 2018. Cashirkeennii sagaalaad ee ugu dambeeyay waxaanu kusoo baranay qaabka cash wax loogu soo iibsado. Cashirka maanta waxaanu ku baranaynaa marka sida asigana deen ahaan sida deen wax loogu soo iibsado ayaanu ku baranaynaa. maadaama cashirkeena ugu dambeeyay oo hadda xalay oo naga baaqday waxaanu sameynaynaa inaan caawa laba cashir isku qaadano oo ah sida deen wax loogu soo iibsado iyo sida deenta la iskaga bixiyo intaba inaanu cashirkan ku barano. waxaan soo eegaynaa inta aan wax sameyn ka hor reportkeena sida uu ahay iyo waxyaabaha aan sameyno kusoo kordhi doono si uu ogaano. marka reportka kadibna waxaad tegaysaa balance sheet-ka oo company financial kadibna balance sheet-ka ku dhufo. balance sheet-ku sidan ayuu ahay markii ugu dambeysay. cash-keena waxaa noogu jirtay ama qasnadeena $20. sidoo kale inventory asset-ka hantida noo taala qiimaha inoogu fadhido waa 7,500 oo lacag ah. sidaas ayuu ahay account receivable aan kasoo booday isagana waxa weeyaan $100 ayaa deymaha noo banaayahay. sidoo kale marka intaas ayuu ahay balance sheet-keenu. hadda waxaanu sameyn doonaa marka vendor ayaa waxaan ka dalbanaynaa kasoo iibsanaynaa kasoo qaadanaynaa alaabdeen ahaan. marka intee saameynaysaa waxay saameynaysaa oo kaliya meeshaan ay ku qoran tahay inventory asset-ka hantida noo taala qiimaha ay noogu fadhido way kordhaysaa maadaama alaab cusub aan keensanayno. alaabtaas inay qiimo noogu fadhido wuu isku dhufanayaa kadibna intuu ku dirayaa. sidoo kale halkan meeshaan ay ku qoran tahay liabilities and equity ayadana way kala laba qayb ay u kala qaadmaysaa. equity intaan ayuu noqonayaa. sidoo kale liabilities soo kordhaya deymo nugula leeyahay ayaa halkan soo geli doona account payable ah. haddii aad si fiican u fiiriso inta badeeca oo ku taalo waxaa sameynaysaa inaad report ka tagto kadibna aad meeshan ka fiiriso inventory kadibna inventory evaluation summary meesha ku qoranta ku dhufo sidaan u ogaanay in badeecadu meeshan soo gashay. badeecada noo taalo guud ahaan waa 160 shay ayaa noo taalo hal marka loo tiriyo. 160 kan xabo markii hadda aan alaab soo alaab deen ahaan kusoo qaadano 160 kan inay korortaa laga rabaa. marka qiimahan ayadana way kordhaysaa maadaama alaab cusub oo qiimo cusub ku fadhida ayadana lagu soo diray. alaabtuna way kordhaysaa qiimahana way kordhi doonaa. marka halkaas iyo account payable ayaa soo kordhi doono waxyaabaha aan sameyn doono. waxaa sameynaysaa marka sida alaab deen ahaan ugu soo iibsato waxaad tegaysaa qaybta banking ayaa tegaysaa. waxaan dhihi lahay vendor ayaa tegaysaa kadibna waxaa imaanaysaa meesha ay ku qoran tahay receive item and enter bill meesha ay ku qoran tahay imaad. halkan vendorka magaciisa ayaa gelinaysaa qaybtan vendor ay ku qoran tahay. waxaan noo diiwaan gashanahay hadda oo kale alkhayraad iyo alhuda ayaa noo diiwaan gashanahay. alkhayraad dooro adiga midkii wax kasoo qaadata ayaa halkan gelinaysaa tusaale ahaan ayaa ka wadaa. marka date halkan ay ku qoran tahay waqtiga waxa soo iibsatay ayaa halkan gelinaysaa. laba date ayaa meesha ku taalo date-kan hoose iyo date-kan kore. date-ka kore waxa weeyaan xilliga alaabtan soo iibsatay oo boonada kugu taalo. sidoo kale halkan waxaa gelinaysaa iyadana reference number-ka oo boonada ay leedahay ayaa halkan gelinaysaa. sidoo kale lacagtan ka bud asaga ku gelin doono markii aad buuxiso qaanada hoose. qaybtan waxaa sameynaysaa iyadana oo ku qoran tahay bill xilliga aad qabanayso waxyaabahan aad sameynayso ama transaction-kan aad sameynayso ayaa gelinaysaa iyadana. haddii isla maanta aad soo qaadatay deenkan isla maantan aad sameynayso labada taariikhood in isku mid yihiin laga rabaa. marka waa saxaysaa halkan taariikh halkan kala bixaysaa waa saxaysaa. sidoo kale halkan kala bixaysaa taariikhda kale waa saxaysaa. marka reference-ga ba iska inuu yahay 44 boonada lamar ku qoran. qaybtan expense item weeyaan qaybta item-ka imaad. halkan waxaa gelinaysaa marka badeecada magaceeda halkan geli badeeca noocee ayaa soo qaadata. tusaale ahaan oo kale waxaa soo qaadanaa leenahay jiko kale mobilka midka lagu dabeeyo ama charger badhe charger ayaan soo qaadanaa halkan ku qoraysaa maadaama hore kugu diiwaan gashnay ma soo qabanayo isagoo charger ayaa leedahay. kadibna waxaa sameynaysaa tab dheh kadibna okay dheh marka oo enter dheh kadibna qaybtan inventory part ka dooro halkan sales review ka dooro ama sales midka ku qoranta oo account-kaas ah. kadibna okay dheh qaybtan quantity ku qoranta imise xabo ayaa ka soo qaadatay oo vendor-kan ka soo qaatay alkhayraad ah. tusaale ahaan waxaan leenahay waxaan ka soo qaadanay 20 xabo
yaanu isku badinba. calaa xabad wuxuu noogu fadhiyaa calaa xabad $1 ayuu noogu fadhiyaa. aba calaa xabad waxaa dhigi kartaa sidii akoonka lacag badan nooguma jirto 20 noogu jirtay aanu ka yaray $1 ayuu noogu fadhiyaa dheh calaa jaajarkiiba. okay dheh haddii intaan meeshan ka boodin wuxuu sameynayaa inuu ku yiraahdo inuu halkan ku yiraahdo qaybtan aan $1 geliyo nus maga tira oo u boodo wuxuu ku leeyahay meeshan aan saxo $5 ay geliyay marka 0.5 laga rabaa inaan geliyo. taa marka tiraahdo wuxuu ku leeyahay jaajarkan new custom ku dalaca inuu kugu fadhiyo yiri $1 calaa xabad. yes dheh marka kaaranti maadaama hore oo 0 ahay wax baraas u salayna hadda ma u diiwaan galaa inuu $1 ku fadhiyo calaa xabad ayuu meeshan ku soo qorayaa. kadib okay dheh asiga isku dhuftay $10 ayuu ninkan kugu leeyahay. alaabaha kale kugu leeyahay halkan sii gali hadba yaa waqtigan ugu dheeraan halkan xab ayaa diiwaan galinayna. marka jaajarkan waa 20 xabo calaa xabad wuxuu kugu fadhiyaa $1 lacagta la isku wada dhuftana waxa weeyaan $10. kadibna safan close dheh waxaa soo fiirinaysaa marka reportkaadii bal sidoo noqday company balance standard meesha ku qoran ku dhufo. halkan waxaa kuu muuqato cashkaada waa intiisa waxba ma taaban. sidoo kale account receivable waxba lagama bedelin. halkan waxay ahayd 7500 waxaa ku korortay 10kii oo ahayd badeecada waxay ku fadhida moogtaa $10 markii jaajarka 20 xabo aan soo iibsanay kulligood markii la isku wada daro badeecada qiimaha ku fadhida waxay ahayd $10 10kii ku saacidinta. sidoo kale 10kan waa kan deyn gula leeyahay waa account payable halkan ay kusoo darsan mujida. current liabilities ka waa ka waa $10 equity-gana gooni ayuu sii kala qaado oo qaybta hoose waa ka. marka deyntan nagu leeyahay ayaan iska bixinayna lacagtii heshay inaad deynta bixisa rabtaa waxaa sameynaysaa marka inaad tagto qaybtan ay ku qoran tahay banking kadibna rad jeegna qaybta rad jeeg marka tagto qaybtan waxaa ku qoraysaa kii hadda qofta deynta siileed waxaan deynta siinayna hadda alkhayraad dooro qaybta hoose wuxuu ku leeyahay sii wado jeegada amba biilka bixi marka continue ku dhufo qaybtan taariikhda sameynayso ayaa gelinaysaa. sidoo kale meeshaan iska daa markii alaab cash ku soo iibsanayna halkan ayaa tagi jirnaa atamka ah maanta laakiin lacag bixin rabnaa qaybta expensive imaad. halkan waxaa gelinaysaa maadaama oo ninkan uu funder yahay halkan akoonka ay badeecadan ka go'ay ama qarashkan ka go'ay waa ay horta akoonka qarashkan go'ay waa cash oo 20 kugu jirto laakiin waxaan maxay yihiin oo ma akoon receivable ama deema qof alkhayraad oo ka qaataa mase waa qarashaad kala wixii inta gal wixii yihiin marka waa deyn ugu leeyahay oo akoon payable waa wax marka akoon payable halkan ka dooranaysaa. akoon payable kan lagu leeyahay oo alkhayraadka ugu leeyahay marka meeqa oo kugu siisar laga rabaa gabigeeda wada siinaysaa mahafa siinaysaa 10 oo kugu leeyahay haddii aad 5 siiso 5 kugu harayso. sidoo kale hadaa 10 ka wada siisanay waxba kugu harimayaan marka 10 ka wada siinaynaaba akoonka 20 noogu jirto marka 10 ka siinayna halka meemada meesha ku qoran tahay faahfaahin ayaa u sameyn kartaa si haddii hadhoobto oo waxyaabo imaadaan oo faahfaahintaas wax uga xasuusato faahfaahinta halkan ay ku qori kartaa. waxaan u leenahay haddii faahfaahin aan ku qorno kale lacag siin aska leedahay saas baa iska leh kadibna waxaa sameynaysaa internet oo safe and close leh waxaa soo fiirinaysaa marka reportkaada sidoo noqday bal waxaa meesha ka bixi doono account payable oo ka bixi doono maadaama wax deyn lagu lahayn iyo cashkaada oo yaraado labadaas dhinac ay saameynaysaa double transaction weeyaan macnaha. marka qaybtan waa ka akoonka 10 ku hartay sidoo kale 7500 waxba iskama bedelin marka halkan account payable hawada ka baxday oo maadaama hadii aan wax deyn lagu lahayn account payable meesha uu ka baxaya. sidoo kale hadda meesha aan ka horeysay balka deemaha maqan ah hadii deemahaas 100 oo la bixiyo oo qoftii lagu lahay oo bixiyo oo hadda kale waxaan ku leenahay cali xasane asigana meesha uu ka baxaya. marka labadaas cashir oo isdul saaran ayaa maanta baranay cashiradii ka horeeyay hadii aad wax ka fahmi weydo qaybta hoose ama description-ka ama comment-ka ugu horeeyo waxaan ku dhigayaa gmail-kayga ama whatsapp-ka marka idinkana si fiican uga celceliya halkaasna iga soo weydiiyo wixii in ku adkaado.
wasalaamu calaykum. cashirkeena 11 ayaa noo ballanaa insha allah.